qaar ka tirsan mas-uuliyiinta ardayda Somaliland ee wax ka baratay jaamacadda Islaamiga ee magaalada barakeysan ee Madiinatul Munawwara ayaa u waramay TV-ga caalamiga Home Cable TV xaruntiisa magaalada Jidda ayaa ka hadlay ahmiyadda uu lahaa meherajaankii dhawaan lagu soo bandhigay jaamacaddaasi. mas-uuliyiinta ardaydaasi mudane Maxamuud Nuur Cilmi iyo Qadar Daahir Suleymaan ayaa waxay kaloo tafaasiil kooban ka bixiyeen qaabkii loo soo qaban qaabiyay meherjaankaasi iyo marxaladihii kala duwanaa ay soo martay jaamacadda Islaamiga waxaana hadaladooda ka mid ah jaamacaddan magaceedu waxa la yiraahdaa Jaamacadda Islaamiga waxay ku taalaa magaalada barakeysan ee Madiinatul Munawwara ku taalaa jaamacaddan waxaa la aasaasay 1381 hijriga oo waafaqsan 1960 miilaadiga ay waafaqsan tahay imika runtii waxaa laga joogaa taariikh aad u dheer 54 sano ardayda jaamacadda Islaamiga runtii aad iyo aad bay u badan yihiin waxay ka kala yimaadeen sidii uu walaal Maxamuud uu sheegay ilaa taqriiban sida lagu qiyaaso 160 dawladood oo caalamka ay ka kala yimaadeen tiradooda hadii waxa lagu qiyaasaa 10,000 oo arday meherjaanka oo macnihiisu yahay bandhige oo bandhig ay soo bandhigaysay jaamacaddu oo jaamacaddu ay ugu tala gashay ardayda jaamacadda dhigata dhammaantood inay soo bandhigaan bandhigooda markaa iyo dhaqankooda ay dawladahooda ay leeyihiin inay soo bandhigaan dawladaha markaa jaamacadda dhigtaana waxa weeyaan waxay lagu qiyaasaa waa 160 dawlad lagu qiyaasaa dawladahaas loogu tala galay inay dawlad kasta ay soo bandhigto waxa weeyaan dhaqankoodii iyo waxyaabaha ay dhaqanka asalka u leeyihiin shay bandhiga waxa weeyaan sheegnay waxa furay oo xariga ka gooyay ama ka jaray mudiirka markaa jaamacadda Jaamacadda Islaamiga al-Ustaad Dr. Cabdiraxmaan As-Sanad mudiirka waxa weeyaan jazaahullahu khayr ayaa maalinta furay meherjaankaas aan sheegay markaa dawladaha waa ka soo qayb galay Daahir Cali Sow Daahir Barwaaqo Jidda Sacuudi Carabiya.